ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada xiisaha badan ee aad daawad noontaan xilligan waxaa kamid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo shaaciyay in ergadii soo dooratay ay u yeereen al-shabaab. Korneel Caare oo kamid ah saraakiishii ka goostay Somaliland oo la sheegay in dagaal uu ku qaaday Somaliland. xog iyo macluumaad ku saabsan yaa diidan in la aasa askari bishii Ramadaan lagu dilay magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Khayre oo ka dhabeeyay go'aankii sii galmudug. Farax Macalin oo Axmed Madoobe ka dalbaday inuu raaco saaxiibadiisa Shariif Xasan Sheekh Aadan Cabduuli Gaas iyo madaxweyne Xaaf. Lafta Gareen oo diyaarad qaas ah ku tagay magaalada Marka iyo ujeedada ka dambaysa oo la ogaaday. Abanaanbax ka dhacay magaalada Ceerigaabo. maxaa looga hadlay kulankii maanta golaha shacabka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho iyo macluumaad kale ayaan idin soo gudbin doonaa. waa 10 bisha Juulaay sanadka 2019 inta waxay ahaayeen qodobada wararka ugu doorka roon iminkana warkii oo inta ka faahfaahsan. xildhibaan Maxamed Xuseen Afraal oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa sheegay in xilligan al-shabaab ay dhibaato ay ku hayaan dalka isla markaana dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay wax ka qabato. waxa uu sheegay in haatan ay mareysay in ergadii soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ay u yeeraan al-shabaab isla markaana ergadii isaga soo dooratay ay kamid yihiin kuwa ay u yeereen xildhibaanka sidoo hadalka u dhigay xubnaha ka tirsan al-shabaab. hadalka xildhibaan Afraal waxa uu ku soo aadayaa xilli horey loo dilay qaar kamid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka waxaana dilalkaasi badankood mas'uuliyadooda sheegtay al-shabaab. waa kan xildhibaan Afraale oo ka hadlaya sida ay wax u jiraan. qaybahan nabaddiidka oo dalka ku faafay oo hadda waliba jiyo cusub soo baxay in laga hortago. hadda waxaan maqlay saamaaday in ergooyinkii soo doortay 275 dhammaan goobo looga yeerayo. aniga hadda idinla hadlayo beeshayda ergadii ahayd maanta waxay joogaan ku sugan yihiin idaale meesha looga yeeray. maxaa loogu yeeray aan isweydiin nin kasta oo xildhibaan ergadiisaas loogu yeerayaa. nimayow dadkaas aan u jeesano inaan dalka ka xoreyno, aan u jeesano inaan iska qabanno, aan u jeesano in dalkeenna siduu ahaan jira aan ku soo celino. waxa nala degay oo halkaana dhigay waa qabiil. shabaab qabiil ma leh, asagaba qabiil ma leh. maxaa qabiilnimo loogu maxaynayaa? nimayo waxaan rabnaa inaan nimankaas iyo wixii ka soo halmaalo hal meel looga soo wada jeesto. mudane gudoomiye mudanayaal waa mahadsantihiin. macluumaadadaas iyo waxyaabaha ka soo kordha wararka iyaga dambe ayaan idinkugu soo gudbaan doonaa insha Allah. iminkana wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo uu hogaamiyay jabhadda Korneel Caare ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland oo ku sugan deegaanka Biyo-Gaduud iyo sidoo kale deegaanka Dhoob oo ku yaala bariga gobolka Sanaag. ciidamadan ilaa hadda waxaa la sheegay in dagaalo ay ku dhexmarayaan deegaano hoostaga magaalada Ceerigaabo gaar ahaan deegaan u jira 30 kilomitir waxaana la sheegayaa in 3 ruux ay ku geeriyoodeen kuwa kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen dagaalka. warar kale oo soo baxay ayaa sheegay in qaar kamid ah dadweynaha ku nool magaalada Ceerigaabo ay dhigayaan mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan dagaalka ka qarxay duleedka magaaladaasi. ilaa hadda ma jira wax war oo ka soo baxay xukuumadda Somaliland iyo jabhadda uu hogaamiyo Korneel Caare oo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay deegaano ka tirsan bariga gobolka Sanaag. waxyaabaha ku soo kordhana kala soco wararka iyaga dambe insha Allah. Ra'iisul Wasaare Khayre oo ka dhabeeyay arrintiisii galmudug ku aadaneed iyo Farax Macalin oo fariin u dilay Axmed Madoobe ayaan gordhow eegi doonaa balse markan muddo ka badan 40 cisho waxaa Firinjeer ku jira askari ka tirsan ciidanka militariga dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada 14 Oktoobar kaas oo lagu dilay dhamaadkii bishii Ramadaan magaalada tan Muqdisho gaar ahaan israasaaseen dhexmartay ciidamada oo ka dhacday degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. askarigan oo ay qaraaban yihiin taliyaha ciidamada lugta General Odawa Yusuf Raage ayaa weli ku jira Firinjeer waxaana la sheegay in la diiday in la aaso waxaana diidmadaasi la sheegay inuu ka dambeeyay General Odawa oo dalbaday in uu raadin doono cadaaladda marxuumka dhintay. qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee marxuumka dhintay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qarashka wax kasta oo ku baxaya marxuumka ee Firinjeerka ku jira oo dusha saartay General Odawa isla markaana oo ka dalbaday odayaasha in aan laga hadlin raadinta xuquuqda marxuumka. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowr jeer dalbaday in la aaso marxuumka balse ma aysan dhicin waxaana la sheegay in madaxweynaha uu kulmo la qaatay odayaasha dhaqanka marxuumka iyo ehelkiisa ay diideen dalabka madaxweynaha maadaama uu gadaal fadhiyo General Odawa sida warbixinta lagu helayo isaga oo dalbaday in isaga looga dambeeyo raadinta maadaama ay saraakiil dawladda ka tirsan ay ku sheegeen dad burcad ahaa xilligii la tooganaya askariga. kiiska dilka askariga ayaa hadda loo gacan geliyay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya balse su'aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa u doodaya dadkii kale ee halkaasi ku dhintay. markana aan eegna gaalkacyo
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waxauu ka dhabeeyey go-aankiisii ah in shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada maamulka galmudug lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo bandhigtay sawirada halka lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta ee beelaha galmudug oo dhowaan la qabanayo. shirkaasi ayaa ka dhici doona goob gaar ah oo loo diyaariyay islamarkaana si wadajir ay uga qayb qaateen madaxda galmudug iyo ganacsatada maamulkaasi. wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi faarax wehliya ayaa booqday halkaasi isagoo u mahad celiyay dhinacyada isku howlay. waxaan kormeernay xarunta sheer kale oo ah goobta loo diyaariyey in loogu qabto buu yidhi shirka dib u heshiisiinta bulshada reer galmudug ee ka furmi doona dhuusamareeb. waxaana socda diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ah mid ballaaran ayuu yidhi xildhibaan cabdulaahi faarax wehliye. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo weli shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada lagu qabto magaalada dhuusamareeb ay diidan yihiin qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee magaalada cadaado. lama oga sida ay wax noqon doonaan, balse ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa horey u cilaamiyey in gogasha shirkaasi ay noqon doonto magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud. waxaana sidoo kale la filayaa in mas-uuliyiin kala duwan ee halkaasi kasoo jeeda lagu qanciyo in shirkaasi ay kaga qayb galaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud, iyadoo maantana mas-uuliyiinta ay halkaasi ay booqdeen gaar ahaan goobta la filayo inuu ka dhaco shirka. dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waxaa lagu waramaya inuu dhagax dhigay hoyga nabadda ee magaalada gaalkacyo. ra-iisul wasaaraha oo dhismaha hoyga nabadda ku tilmaamay sharaaf usoo hoyatay mudug iyo dadka soomaaliyeed oo dhan ayaa ku ammaanay maamulada labada dhinac ee magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale gobolka mudugba dadaalkooda ku aadan nabadeynta, waxaana uu kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan si guriga nabadda ee gaalkacyo loo gaarsiiyo guriga nabadda soomaaliya. markana aan eegno faarax macalin. siyaasiga reer kenya faarax macalin dawaare ayaa weerar culus oo afka ku qaaday madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe, isaga oo sheegay in wakhtigii hogaamiye kooxeedyada uu dhammaaday ayna tahay in uu dabagalo saaxiibadii shariif xasan sheekh aadan, cabdiweli gaas iyo sidoo kale madaxweyne xaaf oo dhowaan dowladda la heshiiyey. faarax macalin oo si weyn u taageeray madaxweyne farmaajo ayaa fariimo uu soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku sheegay in dadka qabiil ahaan ku taageeraya axmed madoobe ay ka kooban yihiin qaar kasoo jeeda magaalada gaarisa, etoobiya iyo sidoo kale qurbajoog. waxaana uu kama jiraan ku tilmaamay doorashada dhowaan ka dhaceysa jubbaland. waxa uu sheegay dadka deegaan ahaan ee jubbaland u leh ee xoog uu ku haysta axmed madoobe, waxaana axmed madoobe uu ku tilmaamay nin aan caqli gal ahayn xowlaha iyo howlgallada uu ka sameynaya, markastaana uu ku celiyo dadka siduu hadalka u dhigay deegaanada kala duwan ee ay kaga sugan yihiin jubbaland. soomaaliya waxaa la degay muddo 40 sannadood ah hogaamiye kooxeedyo aan aqoon lahayn oo afduubay beelahooda. madoobe waa inuu raacaa saaxiibkiis getadow iyo sidoo kale sakiin iyo gaas, ayuu yidhi faarax macalin oo weerar afka ku qaaday axmed maxamed islaam axmed madoobe. axmed madoobe ayaa waxa uu ka qayb ka yahay doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo deegaanada jubbaland. markaana aan eegno marka cadey. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa maanta gaaray magaalo xeebeedka marka ee xarunta gobolka jubbada hoose. wafdi uu hogaaminaya laftagreen isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ayaa ka ambabaxay degmada xudur oo ay ka qaaday diyaaradda ay leedahay qaramada midoobay. madaxweyne laftagreen iyo xubnaha la socda waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey maamulka gobolka shabeellaha hoose, kan degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana si wada jira ammaanka u sugaya ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom. saacadaha soo socda madaxweynaha waxaa kulamo kala duwan uu la qaadan doona mas-uuliyiinta halkaasi ku dhaqan. waa markii ugu horreysay oo madaxweyne laftagreen uu booqdo magaalada marka tan iyo markii loo doortay xilkaasi. marka oo ah magaalo qadiimi ah waxaa inta badan in muddo ah go-doon ku hayay al-shabaab, inkastoo hadda meelaha ugu badan laga saaray al-shabaab. markana aan eegno kulankii maanta ee baarlamaanka. xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta Arbaca waxay xaruntooda golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ku yeesheen kulanka 25aad ee kalfadhiga shanaad, waxaana kulankooda goobjoog ka ahaa 146 xildhibaan. kulanka waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, waxaana ajandayaasha maanta looga hadlay kamid ah akhrinta saddexaad ee xisaab xirka miisaaniyadda 2017, akhrinta labaad ee sharciga hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya iyo qodobo kale. sidoo kale kulanka waxaa warbixino looga dhageystay guddiga xaqiiqa raadinta ee loo xil saaray dilwadareedkii magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug loogu geystay 9 ruux oo kasoo kala jeeda deegaanada koonfur galbeed iyo hirshabeelle. xubno kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka dhiibtay ajandayaasha looga hadlay kulanka maanta, waxaana ugu dambeyntii kulanka soo xiray gudoomiyaha golaha shacabka. wararkii ugu dambeeyay oo aad kala socoteen shabakada wararka maanta waa naga intaa. warkan warka xiga intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
qaybahan nabaaddiidka oo dalka ku faafay oo hadda weliba jiyo cusub la soo baxay in laga hortago. hadda waxaan maqlay saan u imaaday in ergooyinkii soo doortay 275 dhammaan goobo looga yeerayo. aniga hadda idinla hadlaayo beeshayda ergadii ahayd maanta waxay joogaan ku sugan yihiin idaale meesha looga yeeray. maxaa loogu yeeray aan isweydiino. nin kasta oo xildhibaan ergadiisaasa loogu yeerayaa. nimayow dadkaas aan u jeesano inaan dalka ka xoreyno, aan u jeesano inaan iska qabanno, aan u jeesano in dalkeenna siduu ahaan jira aan ku soo celino. waxa nala degay oo halkaana dhigay waa qabiil. shabaab qabiil ma leh, asagaba qabiil ma leh. maxaa qabiilnimo loogu maciinayaa? nimayo waxaan rabnaa inaan nimankaas iyo wixii ka soo halmaalo hal meel looga soo wada jeesto. mudane gudoomiye, mudanayaal waa mahadsantihiin.